السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي ده كسو دواada Soomaaliya Green marka sidaan nii sheegay saliida roosmarinka waa kana waa ku qasay labadii bari waa la soo dhaafay maasha Allah saanay kusoo baxday marka maanta waxaa rabaa dhaladan ku shubayaa tinta sidaa u marinaysid oo qasay sidaan ku tusayaa maasha Allah waa roosmarin ay soo carfayso caleenti kalena waa kana marka geedkan ayaa keenay geedkan yariiska ah maasha Allah suuqyalaha ka soo gadi kartaa ay yaaliin geedkan waa hadhow saan oo isticmaalay ani tusaa tinta si loo isticmaalayo marka dhaladii roosmarinkii ayaa waxaa sameynayaa aan qasay ayaa inta waxaan sameynayaa inta dhaladan aan ku shubanaynaa halaha rabtid inaad isticmaashid dhalooyin yaryariis saane suuqyaalka lagu gadaa waa helaysaa markadyaalka helaysaa ama waxaa ka helaysaa meelaha cosmeticta lagu gado ayaa dhalooyinkan ka helaysaa kadib waxaa sameynaynaa dhaladaniita ayaa waxaa ku shubanaysaa saliidaada intaa saliida ku shubanen maadaama maanta timaha ku qasaayo saliida yaa maanta tinta lagu qasayaa waxaan soo baxsaday rosemary fresh dhaladeyda ayaan gashana waa kala jibinaa caleentaasaa rabaa caraf miiran waa maasha Allah waa dhex gashanayaa dhaladan saliida hadda madaxa marsanayo oo roosmarinka oilka marsanayo ayaanba sii dhex gashanayaa mid fresh ka waran way sii carfaysaa dhaladeyda waa kaasaa dhaladan ku dhex ritay saana ugu sameynaysaa waa kana intaa kalena waxaa sameynayaa shaaca ka dhiganayaa caloosha appetite-kii ku furaysaa calooshii ku nadiifinaysa sidaa soo sheegay maasha Allah waaye roosmarin aad u fiican yahay waa ka dambeeya cuntadana markaa karnaa hal mar aan nii tusayaa inaan cunto soo karnaa asina cunto markii karnaa xataa waa karsan kartaa marka geedkan asigana maasha Allah wuu carfaa mala tuuraayo jak waa ku ridaynaa marka maadaama aan roosmarinka dhaladeeda yariistan ku shubtay waa dhalada haddaan saliida madaxa marsanayo saliideeda wax badan aan samaystay marka waa dhaqaalaysana dhaladaan aan ku shubanayaa maanta alaha marsanayna ku shubanaynaa bismillahi raxmaani raxiim okay waa marka alahaas waa gafisaa marka waa kana asxaabe saliideena maasha Allah waa ujeedin wali alahaas ayaa hartay 3 isbuuc ay deeqaysaa isbuuci hal mar waa 3 isbuuc ama 4 isbuuc way deeqaysaa intii ku qaso marka halahan aan u baahanahay tinta ku qasaayo yaa waa ujeedin maasha Allah roosmarinkii freshka ayaan soo dhex gashtay mar labaad kuwii awal oo saliidii ugu dhex jireen way ku dhex jiraanayaan ma ka bixinaysid please ku dhaaf waa aaday kugu fiican tahay timahaada u fiican tahay ha ku dhex jiraato saliida saasaa u isticmaalaysaa marka intaan ku dhaafay kii hore aan soo sameeyey kan kalena wax yaraan geliyay caleenteydan ku darsaday saliidiyan ku darsaday marka hadda waa xirayaa ha tuurin aan ugu dhex jirto caleenta saasaa ku marsanaysaa saliida saasay timaha kugu bixinaysaa kugu qurxinaysaa kugu strongana ka dhigaysaa marka waa kaasaa maasha Allah saasay u taalaa roosmarinkii freshkii saliidiisa waatana isbuucii hore soo sameynaa inta ku darsaday marka geedkan yar waxaa soo gadanaysaa waxa waaye halaha tinta marsanaysa isbuucii ku darsanay dhalada weyn midkaa ku samaysata meel uu ku waalana isbuucii hal mar isticmaalaysaa marka hadda waa soo baxaa jikadan ka tagayaa waan ii tusayaa tintaa marsanaya marka waa kana asxaabteyda gabalka xabaan iga tusayaa sida u aragtiin maadaama markas la weydiinaa sida loo isticmaalaa marka saliida roosmarinka waa kana jikada hadaa ay joogay waan ii tusay sidaa u sameynaysid waa kaasaa roosmarinkia dhexda ku jiraa dhaladan yaraa kusoo shubtay kii owalna waliba ay yaalaa waa taa aragteen marka hadda tinta sidaa ugu sameynaysaan ku tusayaa dhalada roosmarinka waa ku luxluxaysaa waa kana geedin markaa ku luxluxays ka bacdi gabalkan tinaan soo qaaday inaan nii tuso gabalkan aan soo qaatay saanaa sameynaysaa jid dhaxa bixinaysaa meesha tinta kasoo baxaysaa loo baahan yahay geedin jidkaas dhaxaan bixi marka separate ka dhigaynaa waxaa sameynaysaa waxaa soo qaadanaysaa saliida roosmarinka jidka dhaxa meeshaas dhaxda mageedaa sarta ayaa rabnaa bismillah
كاسا سلكا ayaan ku shubay tinta mujadiin kabacsaana masaaj ugu sameynaysaa ku masaajiray si fiican tinta ugu masaajiray hal saac kabacdina waa ka dhaqayaa shaambaa ugu dhaqaa isbuucdan saasaa sameynaysaa markasta markaan idhahayo timaha salka waa meeshay ka baxaan salkaas mujada aan saliida ku shubay meeshaana loo baahan yahay masaajo si fiican u marisid ku masaajiraysid saana sameynaynaa labada gabal aan kala goynaa isku soo celinaynaa haddii dhinacaas waa ku shubmaa haddana intaa imaanaysaa mid kala baxsanaysaa jid kala bixine dhag haddana jidkaan rabnaan aan ku shubno kulligooda dhexdana saasaa u shubaysa haddana dhexdaan rabaan ku shubo saliidaa soo qaadaysaa waa kaasaa oo jeedin waa ku dhex shubay haddana ayadana masaajaa ka sameynaysaa jeedin markasta halka ayaa ku shubaysaa saliida saas ay wax kaaga taraysaa tinta kusoo bixinee kuu qurxinaysaa salka ayaa ku shubnay waa kaasaa hadda waa kana inta waa ku shubnay inta waa ku shubnay dhinacana hare mogtahay haddana dhinacana imaanaysaa indhahaa baxsanaysaa saana sameynaysaa waa fiirinaysaa hadday kugu yaalo saliidii wax yaraa ku taallaa okay waa ku daraysaa wax yar ujeediya meeshaas dhexdeeda dhab hal goojaa kugu filan bash waa kaasaa hadda waa soo qaadaynaa saana gacanta u gelinaysaa saanaa sameynay masaajaa ku sameynaysaa tintadan rosemary dhan aad timaha ka carfooyo saana sameynaysaa tintaa kor u qaadaysaa meelahana kuu soo haray meelaha haddaad timo ka lahayn ama ay tinta kaa sikatima marka barkiisa xijaabka ama waxaas gabdhaha qaarkood timaha ka sigta ama tinta gadaal markasta loo xiraayo timaha ayay sikasiinaysaa marka meelaha markaa ratid inaad tin ku samaysid mujadiino meelahan hadda inta way iga taalaa meeshaa markaa ratid inaad buuxisid mujeedaa meelahaneyti haddana inta way ii taalaa inta way igu badan tahay intaa rabaa inaan mariyo inta mujadiino meelahan oo kaleeta hortada hore indhaha qabsanaysaa saana sameynay waa ku buufinaysaa masaaj ayaa ku marinaysaa hortadan horena inay tinta ku badnaato ee meelahaasna tin ka soo baxaan because meel kasta inaad tin ka soo saartidaa rabtaa marka meelahaneyti maadaama aa tinta xiraysid ama safaleyd ama wax markas ku saaran yahay marmarka barkiis tinta gadaal ay u sikanaysaa marka meelaha waa hilmaamin inaad tintaada marisid kaasa mujadiino meeshaan waa mariyey hadda kulli waa ku wada masaajiraynay maasha allah hadda maadaama aa kulli dhexdaan oo dhan aa soo marisay hadda dhexdii dhan waa soo marin meeshii timaha ka baxaya dhan waa soo marinay marka waxaa sameynaysaa halaha mujeedaa ayaa qabanaysaa saliidaada saana ugu buufinay kadib saana sameynaysaa hadda halahan tinta harta ayaa marinaysaa saana ugu marinay markaasa hal xabo tin yay kaa fakanin kulligooda si fiican marso markaa wada marisid maasha allah rosemary-nkaa ka carfaayo tinta dhan rosemary-naa ka carfooyo markaa wada marisid waa kuusaysaa ka bacdi waa kuusanaysaa kuuskaada sameynaysaa rosemary-nkaa timaha ka carfooyo maasha allah kuuskaada sameysa timaha bes waa kaasaa haddana timaha dhinacyaalaha kaleeta dhan kulligoo saasaa sameynaysaa markasta jidhaha bixinee waa soo qaadaysaa waa marinaysaa hal saaca ku dhaafaysaa waa ka dhaqaysaa insha allah 3 bilood baroobay
ama 4 bilood ama 6 bilood isbedel ku arkaysaa meesha tinka soo baxda arkay tinta strong noqonaysa arkaysaa tinta qurux badnaanaysa arkaysaa hadda waa kana waxyaalaha marinayo waa u jeedin gabalkaas yar leh mee wax ma soo bixin marka maasha allah waa rosemary timaha aad ugu fiican yahay haddii aad tahay dadka oo geedaha oo alopecia iyo kan la dhahayo qabaan oo waxyaabaha timaha ku dhaco ama tinta kaa sikanaysa ama tinta kaa bidayso rosemary-kan iyo xulbooyinkan iyo waxaas dhan aan soo dhigo ku dadaal insha allah next time waxaa rabaa inaan dhageyro saliid soo geliyo oo waxaan helay secret marookaanka timaha ay ku baxsadaan marka sirtaas inaan la sheergareeya rabaa waa mahadsantihiin asxaabteyda meel kasta adduunka joogtiin follow like share assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa kaasaa halaasaa harta kii ujeediina waan soo sameeyey kana waxaa waa kii maanta timaha ku dhameynayo waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu follow like share insha allah ka faa'iidaysta alaabtaneyti